السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ نولدكii Sheekh Maxamed Xasan Maxamed. Sheekh Maxamed Xasan Maxamed ogaaskii hore ee beesha Garjanta Gardheere Soomaale waxa uu ku dhashay degmada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe. Wuxuu dhashay sanadii 1905 kadib markii uu soo hana qaaday uu bartay Quraanka Kariimka waxa uu noqday xer si uu u barto tafsiirka Quraanka Kariimka iyo axaadiista magaalada Baardheere. sanadkii 1920 waxa uu soo baxay degmada Baraabe markii uu magaaladii yimid waxa uu aasaasay goob lagu barto barashada Quraanka Kariimka iyo tafsiirka. wuxuu magaaladaasi ka soo kiciyay ugu yaraan 3 dugsi iyo dad badan oo ka bartay tafsiirka Quraanka. sanadii 1940 waxa uu soo baxay magaalada Muqdisho magaaladana waxa uu ka sii waday fidinta diinta Islaamka. 3 sano kadib 1943 waxa uu ku biiray ururkii SYL ololihii wacyigelinta iska xoreynta gumaysiga ilaa uu gumaysigu ka baxayay 1960 hawlaha dib u xoreynta waa uu sii waday. sanadkii 1960 gumaysiga sanadkii 1960 markii laga saaray gumaysiga wadanka waxa uu ka mid ahaa dadkii habeenkaas u taagnaa calan saarka uuna garab taagnaa Abaan Cabdullaahi Suldaan Timacade kan nasiib kan nasaar gabigii la magac baxay. calan saarka kadib 1962 waxa uu ama baxay wadanka Sacuudi Carabiya. 1970 dawladii kacaanka waxa uu ka mid noqday xubin ka mid ah wasaaradda diinta iyo awqaafta. 1975 waxa uu ka mid ahaa culamaa diinka 1975 waxa uu ka mid ahaa culamadii madaxweyne Siyaad Barre u xiray xilliga xeerka qoyska. Sheekh Maxamed Xasan waxa lagu xiray xabsiga Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe. waxa uu markii xabsiga ka soo baxay dib u bilaabay 1967 inuu ka mid noqdo muwaadiniintii ka wacdin jirtay magaalada Muqdisho khaasatan Ceelgaabta. 1983 waxa uu noqday xubin ka mid ah qaadiga garsoore qaybta zawaajka. sanadii 2000 Sheekh Maxamed Xasan waxa uu tagay dalka Djibouti wuxuuna ka qayb galay shirkii doorasho ee dawladda Cabdiqaasim Salaad Xasan wuxuuna noqday oo loo doortay ogaaska beesha Garjanta Gardheere Soomaale. wuxuuna soo dhisay xukuumadda Cabdiqaasim Salaad Xasan oo lagu doortay dalka Djibouti ee magaalada Carte. sanadkii 2004 ilaa 2006 waxa uu ka mid ahaa majmac culamaa diinka Soomaaliyeed uuna hogaaminayay Sheekh Axmed Dicisow ee magaalada Muqdisho. sanadkii 2007 ilaa 2008 waxa uu ahaa ogaasidii hogaaminayay madashii dawladii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed magaalada Muqdisho ee hotelka. sanadkan aan ku jirno 2021 bisha 8 ayuu ku geeriyooday magaalada Muqdisho. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.